maareeyaha wakaalada biyaha Burco Cabdixakiin Maxamuud Axmed iyo sidoo kale agaasimaha waaxda iibka ee wakaaladaasi oo ka hadlay carwo ganacsiyeedkii sagaalaad oo maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagu soo gabagabeeyay ayaa ka warramay qiimo dhimis ballaaran oo ay u sameeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Burco iyo sidoo kale sida hufnaanta leh ee ay ugu shaqeeyeen bulshadooda waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi dawliya oo biyaha Burco wakaaladeedu waa institution dawliya waxaan gacanta ku haynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka iyo dalka iyo dhirta iyo xayawaanka ku nool yihiin biyaha sida ka muuqata boorka iyo staafkii wakaalada xubnihii madaxdii ugu safareysay oo halkan taagan waxaanu kaga qayb galnay in ummadayada ama macaamiisheeda wax badan ku celino oo ah 7 cisho free charge in biyaha looga dhigay 7 cisho biyo gelintu ay bilaash tahay dadka imanka biyaha gashay 7 cisho bilaash ku gashay tirahan saaka waxay marayaan 100 ayay marayaan wara wax ilaahay loogu mahadnaqo dadkaasina waxay badan dad yar oo markii hore awoodi kari waayay waxa yara laga qaado taasi waa qodobka koobaad ee carwada kaga qayb galay qodobka labaad waxaanu sameynay laba discount dadka wixii biyaha hore looga jaray ee awoodi waayay lacagta iska bixiyaan boqolkiiba 50 aan u sameynay oo wixii sanad ka badan wixii sanadkii gudihiisa 19 iyo 20 gaana ee wax lagu lahaanayo markii biyaha bucaanay dadka lacag wada lagu yeelanin waxaan u sameynay boqolkiiba 2 saddex faa'iido isa saaran biyo bilaasha biyo discount boqolkiiba 20 biyo boqolkiiba 50 oo saddex kategoriya ka wakaalada waxaan kaga qayb qaadanay in bulshadu dan yar tahay biyo lagu siiyo free charge oo ay kaga faa'iideysteen bulsho badan oo gobolka Togdheer oo ay aad iyo aad ugu farxeen oo ay farxad gelisay runtii adan wakaalada nahay mar walba wax soo saarka wakaalada ka soo baxa waa mid bulshada gobolka Togdheer ku noqda ayaa le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.